بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد إمام الذاكرين وإمام الشاكرين وصلى الله على آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلا يوم الدين odayaashii kolley meeshan ka hadli lahaa way maqayin baan u malaynayaa malaha waxaa lagu yeedhay inaan ku yarasimo oo xoogaa dadka sii maaweeliyo anigu barnaamijka maamooyinka iyo odayaasha iyo dhalinyarada iyo qabanqaabiyaasha xafladdu aad iyo aad ayay u salaaman yihiin waana muuqaallo qurux badan oo dhiiri gelinaya cid kasta oo jecel Soomaalinnimada iyo dhaqankeena iyo hidaheena iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed waxa ay ku faraxdo ayaa maanta Boston ka dhacday waa dhacdo taariikhi ah oo ummadeenu ay u dhaxal weyn u reebi kartaa waxaan baraarujinteeda ku bilaabayaa sidan soo socota anigu kelmadeedu way iska baraarujin bariyahana mikrofoonka waa ka maqnaayo kolley waa iska hashkadeynaya raali laga ahaada afka hooyo ka hadalkiisa iyo hoga tusaaleyntiisa aqooneed oo ay ummaddu iska lihi si joogtaysan horumarintiisa iyo dactirkiisa u qaada dhigtaa waa waajib dusha inaga saaran oo aynu ku daryeelayno waxyaabaha haddaynu Soomaali nahay aynu goonida u leenahay oo afka Soomaaligu ugu horeeyo muhiimadda weyn ee afka la huwiyay waxaa sabab u ah inuu afku yahay midka lagu fuliyo dhammaan waxyaabaha ay Soomaalidu dhammaan waxyaabaha ay Soomaalinimadu ka kooban tahay dadkeenu way jecel yihiin oo ku faanaan Soomaali inay yihiin laakiin waxaad moodaa inay halmaansan yihiin in ay Soomaalinimadu leedahay tiirar iyo rukumo ay ku taagan tahay oo aanay la'aantood taagnaan karin Soomaalinimadu waxay leedahay dhaqan waxay leedahay dal waxay leedahay caadooyin iyo aqoon kala duwan oo hidde ahaan loo kala dhaxlo waxaan looga maarmin dawladnimo waxaysan ka maarmin xeerar iyo qawaaniin ay dadku kala baxaan waxay leedahay diin waxaas oo dhan furaha lagu kiciyo iyo matoorka dhaqaajiya waa afka Soomaaliga maxaa yeelay isaga ayaa wax kasta oo nolosha dadka Soomaaliyeed ku saabsan lagu kala socodsiiyaa oo haddii aan afjirin waxay la macno tahay in aanay umidi jirin sidaas ayaynu afku ku noqonayaa midka ugu muhiimsan waxyaabaha kala duwan ee ay Soomaalinimadu ka kooban tahay afka hooyo sida magaciisa ka muuqata waxaa lagu sameeyay magaca qiimaha badan ee hooyo oo asal ahaan macnihiisu ka soo jeedo ereyga hooy oo macnihiisa tooska ah noqonayo aqal guri taas oo loola jeedo sida ay hooyadu u tahay aqal ay ubadkeed yari ku dhex koraan oo aan wax loo dhiga jirin afka hooyo waxaa kaloo sabab uu sabab u yahay in afka lagu magacaabo afka hooyo waxaa sabab u ah in lagu magacaabo in ubadku ay afka ka bartaan hooyadood oo macalinka iyo barbaariyaha ugu horeeya ee ubadku yeesho uu yahay hooyada afkeena Soomaaliga xagga adeegsiga qaybaha kala duwan ee nolosha marka laga jeedaaliyo waa af dhamays ah oo dhan loo eegaba murtidiisa mahmaahdiisa maansadiisa qoto dheeraantiisa hadal iyo hodantinimada ereyadiisu taabagal yihiin oo aad u xirib iyo xeel dheer yihiin sida ay afyaqaano badan oo caalami ah rumaysan yihiin afka Soomaaligu wuxuu ka mid yahay afafka ugu hodansan ee geeska Afrika laga hadlo waana tilmaan xilliyo hore u baxday oo aanay wax dooday ka taagnayn tan iyo markii la hirgeliyay qorista farta Soomaaliya 1972kii waxaa af-Soomaali lagu daabacay buugag wargeysyo kala duwan wuxuu afku ku tallaabsaday horumar weyn waxaa lagu daabacay buugagta cilmiga ee ay ardaydu wax ka barto dugsi hoose ilaa heer jaamacadeed sida sayniska iyo xisaabta iyo culumta adduunka laga barto isku soo wada duubo tan iyo markii
ay colaadaha sokeeye dalkeena ka qarxeen waxay habacsanaani soo food saartay afka Soomaaliga maadaama ay dawladdii daryeeli jirtay meesha ka baxday madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa isu xilqaamay inuu afka Soomaaliga intii karaankiisa ah boorka ka jafo wuxuuna Jabuuti ka furay akademiya goboleed lagaga shaqeeyo horumarinta afka Soomaaliga oo ay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba ku soo hiran karto waxaana ilaa iyo intii akademiyada la furay lagu daabacay buugaag tiro badan oo si tiyo wanaagsan loo daabacay hadal iyo dhamaantii Soomaali meel ay joogtaba afku wuxuu uga baahan yahay daryeel iyo hiil midka ugu horeeya oo aad ku daryeeli kartaan waa idinkoo bara oo kula hadla ubadkiina afkiina hooyo haddii aad tiraahdid Soomaali baan ahay ubadkaaguna uusan aqoon af-Soomaali haddii aad tiraahid Soomaali baan ahay ubadkaaguna uusan aqoon afkii furaha u ahaa Soomaalinnimada ma dhaxlayaan caruurtaadu Soomaalinnimada aad sheeganayso jawaabtu waa maya oo maya shakile kuma jiro kooda dadaala inuu berri odhan doono waalidkeedu waxay ka yimaadeen Afrika oo uu halmaamo inuu Soomaaliba aynu ahaan jirin hooyooyinka Soomaaliyeed ee sharafta badani afkii loogu magac daray mudnaantooda ee lagu sharfay mahungay ka joogaan oo caruurtooda oo aan aqoon bay iska daawanayaan maya waa inay hooyooyinka Soomaaliyeed guntiga dhiisha isaga dhigaan sidii ay waajibaadka afka ka saaran u gudan lahaayeen sidaas oo kale aabayaasha Soomaaliyeed waa inay u tafaxaytaan sidii ubadkooda u dhaxalsiin lahaayeen afkooda hooyo idaha iyo dhaqankiisa caadooyinkeena Soomaalidu ay lahaan jirtay oo haddii aynaan daryeelin aanay jirin cid kale oo inoo daryeelisa intaas kadib waxaan jeclahay inaan eray ka idhaahdo buug qiimo badan oo uu qoray aqoonyahan Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdalla Mansuur oo aan ayaamahan weel ka dhigtay oo aan akhrisanayay daraasadda dhammayska ah ee dhan loo eegaba ee isku dubaridan oo uu aqoonyahanka Cabdalla Mansuur ku soo bandhigay buuggiisa la magac baxay Taariikhda iyo Luqadda Bulshada Soomaaliyeed waa tub ay aqoon taaba gashay ku laran tahay oo ciddii daalacataa ay ka dheehan karto asalka afka Soomaaliga sida uu kala baxo qaraabada iyo bahda uu ka soo jeedo iyo waliba halka ay Soomaalidu dhaliyo ahaan ka soo jeedo buugga uu Cabdalla Mansuur soo bandhigay waa raasamaal qoys kasta oo Soomaaliyeed u baahan yahay inuu dhitaysto oo hooygiisa ku kaydsado waayo qof kasta oo aadanaahi wax badan wuxuu jecel yahay inuu ka ogaado halka uu ka soo jeedo deegaankiisa iyo barashada afka hidaha iyo dhaqankiisa gaar ahaan kuwa uu buugga Cabdalla Mansuur si aqoon durugsan u dheehan tahay uga hadlayo hanaanka raadraacu hagayo iyo hanaanka uu qoraal ahaan afka Soomaaliga u hufay ayaa u muuqda hibo dheeraad ah oo qoruhu haleelay akhristaana hamuun uu ku haleelo gelinaysa waxaan akhriyay dhowr goor welina waan akhriyaa waxaan u hambaleynayaa Cabdalla Mansuur dadka Soomaaliyeedna waxaan ku baraarujinayaa inay buugga raadiyaan oo ubadkooda iyo caruurtooda iyo taariikhda ku duuban ay ka faa'iideeyaan. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.